ururka horumarinta bulshada ururka horumarinta Dambulsho waxaan maanta ugu talagalnay inaan ka qayb qaadana dadka walaalaheen dhibaataysan taasoo ugu talagalnay inaan ugu qayb qaadana dhar iyo lacag imaacuun aan hayno aan ugu talagalnay guddiga abaaraha qaranka aan ku wareejino sidaa darteed lacagtaasi waxaan ka soo qaadnay iyo lacagta iyo dharka iyo alaabta waxaan ka soo qaadnay bulshada Soomaaliyeed ma ahan anaga waxaan si gooni u keenay ma ahan sidaa darteed waxaan ku wareejin doonaa guddiga qaranka abaaraha oo wakiil uu noogu yahay gudoomiye uu ku yahay Sheekh Nuur Baaruud Kurxan insha Allah hadda si cad waxaan u wareejin doonaa lacagta oo dhan 500 oo dollar shilin Soomaaliya marka loo sarfano waxay gaaraysaa 12 milyan dharka wuxuu ka kooban yahay hal bundad iyo 6 juwaan iyo hal bac oo dhar ah iyo 2 juwaan oo maacuun ah iyo 2 saladood ayuu ka kooban yahay marka gadoon waxaan leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم أرددان إسحيل قامي كسو أروري شعب كصوماليات قريه انتي تاقين دار كاستيرادة بدن يا معونكا يا لعقتها شنطة $100 وحان لنا جزاكم الله خير وحكود دايدين أرددا أيقو كلاء إن جامعتها إسكولة قريها كسو أروريان إن لبدبادية شعب كصوماليات دمانيا وابتغي كرتان دان يردو حتى كتو بركعياشا بلها سو أركين حالكم ماشو مرأي بركعياشا كليا إذن كفلان إناد سو أركتان بر هدي لا soo arkana hurda ma jirto nasiinana ma jirto waa in shacabka Soomaaliyeed la badbaadiyo aad baad u mahadsantihiin